waa dhacdo la yaab leh oo Hindiya oo dhan ay ka naxday. Waa hooyo 40 jir ah iyo gabadheeda 22 jir ah ayaa isdilay kadib markii gabadheeda muuqaal galma ah laga duubay, waxaana ka duubay ninay xiriir lahaayeen gabadheeda. Kadibna hooyadii iyo gabadhii waxay u dulqaadan waayeen ceebtii, kadibna way isdileen oo nafta ayay isdhaafiyeen. Dhacdadan waxay noqotay dhacdo dad badan oo Hindiya ku nool ay ka naxeen. Haddaba muuqaalkeena maanta ayaynu ku soo qaadan doonaa. Asxaabtayda qaaliga, muuqaalka like-ta saara siduu dad badan u gaadho, anagana dhiirigelin ugu noqoto. Asxaabtiinana u sii sheeri gareeya muuqaalka saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. Haddii aad ku cusub tahay page-keena Facebook ee Maxamed Wardi Official, nagu soo biir oo follow-da saar. Haddii aad iga daawanayso dhanka YouTube, nagu soo biir oo subscribe-ta saar saad ula socoto muuqaalada xiisaha leh ee aan mar walba soo geliyo channel-ka. Aad baad u mahadsantihiin asxaabtayda qaaliga. Dhacdadan waa dhacdo naxdin badan oo dadka Hindiya ku nool ay ka naxeen. Waxaanay dhacdadu dhacday 2021kii, waxaanay ka dhacday tuulada Nagarastan. Babu Baswan oo ah dadka tuulada ku nool ayaa booliska u sheegay in gabadha yar istishay ee 22 jirka ah inay xiriir la lahayd wiil lagu magacaabo Satyam. Haddaba iyada iyo Satyam xiriir ayaa ka dhaxeeyay, kadibna nin kale ayay guursatay. Markii ay gabadhii yareed guursatay ee ay reer yeelatay, Satyam way iskaga tagtay, kadibna way nacday. Haddaba Satyam oo gabadha yar jeclaa waxa uu ku fekeray inuu ku rekaateeyo muuqaal uu bari hore ka duubay. Muuqaalkaas oo ahaa muuqaal fool xum oo galma ah. Haddaba Satyam ayaa gabadhii yareed ku rekaateeyay, isagoo gabadha yar ka dalbanaya inay ninka iskaga tagto oo isaga la noolaato. Satyam ayaa gabadhii yareed ugu hanjabay haddii ay soo raaci weydo ay la noolaan weydo inuu muuqaalkan uu baraha bulshada soo dhigayo. Haddaba Satyam waxa uu doonayaa inuu gabadha yar ku ciyaaro maadaama isaga ay nacday oo iskaga tagtay oo ninka guursaday ay raacday. Haddaba Satyam isagu waxa uu soo xasuusanayay noloshii hore iyo xiriirkii ay la lahayd, iyaduna way nacday oo way iskaga tagtay. Mar walba uu dhibi jiray gabadha yar, waxa uu ugu hanjabi jiray haddii ay soo raaci weydo in muuqaalka uu baraha bulshada soo dhigayo ama uu ninkeeda u dirayo. Haddaba gabadhii yareed Satyam way diiday oo waxa ku tiri kuma doonayo. Haddaba Satyam ayaa muuqaalkii u soo diray ninkii gabadha yar qabay. Satyam ayaa muuqaalkii ku faafiyay baraha bulshada. Dhammaan Hindiya iyo Pakistan muuqaalkii waa laga daawaday. Ceeb weyn ayaa soo gaadhay gabadhii yareed, ninkeedina arrintan wuu ka naxay. Haddaba gabadhii yareed iyo hooyadeed gurigii way ka bixi kari waayeen ceeb daraaddeed. Waxay ahayd gabadh yar oo la guursaday oo guurkeedu uu cusbaa, balse Satyam ayaa nolosheeda oo dhan ku ciyaaray. Babu Baswan oo ah dadka tuulada ku nool waxa uu sheegay in maalmo ka bacdi ay arkeen gabadhii yareed iyo hooyadeed oo isdeldelay. Babu Baswan waxa uu yidhi markii la arkay gabadha yar iyo hooyadeed oo isdeldelay oo nafta isdhaafiyay, dadka tuulada oo dhan way ka naxeen. Haddaba booliska ayaa gacanta ku soo dhigay Satyam, arrintanna wuu qirtay. Ma fiicna in gabadh muuqaal laga duubo oo lagu rekaateeyo oo mustaqbalkeeda oo dhan lagu ciyaaro. Gabadhanu 22 jir ayay ahayd, balse nolosheedii oo dhan waxa ku ciyaaray Satyam. Dhacdooyinka noocan oo kale ah Hindiya way ka dhacaan, in gabadh muuqaal laga duubo oo lagu rekaateeyo. Dadkeena Soomaalida ah waayahan dambe waxaa la moodaa in dhexdooda ay ku soo badanayaan ragga muuqaalada ka duuba gabdhaha kadibna ku rekaateynaya. Waxaa laga yaabaa gabadhaad muuqaal ka duubtay waad ku rekaateynayso inay istisho oo nafta isdhaafiso sida gabadhan oo kale. Ka digtoonow dhaqan xumada noocaas oo kale ah. Asxaabtayda qaaliga, muuqaalka like-ta saara siduu dad badan u gaadho, anagana dhiirigelin ugu noqoto. Asxaabtiinana u sii sheeri gareeya saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. Waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waa inooya muuqaalka xiga ee xiisaha leh insha Allah.